السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب ميل والبضافة عالم كذا سجن تهين كسر دوادا channel كنا مو راس channel ومرة البعض سوق بيا برنامج الحقيقة ده إذا الكجرة سيدا أريمها السياسة ده بس ما انتهى وحاولنا reaction كسابسن وأن ربنا إنك قفل علينا سياسي معارضك عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه عطسجي وكعصدي ومضى صوماليات مركا وحن ربنا برنامج اسمه رياكشن كبحنو كنا سو دواده هدي اتكو عصبتها جنال كاموراس وحلقه عصنيا ان تشير لايك you don't know now سبسكرايب ادو جود بس اصحابتادا سي اي ولا سocdaan barnaamijyada aan halkan kusoo gudbi doono marka waxaan rabaa inaad la socotaan sida aad ogtihiin dalka Soomaaliya wuxuu leeyahay mucaarad aad u tiro badan mucaaradkaas oo halka uu ku saleysan yahay iyo mucaaradnimadiisa waxa ay tahay aan la ogeyn kaliya ay ummadda Soomaaliyeed ay rabaan in ay maran habaabiyaan maadaama hadda dalka ay dawlad ka jirto dawladuna ay tahay mid kaliya ila aqoonsan yahay ayna la tacaalayso amniga iyo arrimo badan oo ku saabsan dhinaca arrimaha bulshada balse mucaaradka Soomaaliya waa mid u dhoom duleela in uu dalka Soomaaliya iibsado ama gato oo ka gato dawladda shisheeye marka barnaamijkeena reaction maanta waxaan ku sameyn doonaa hogaamiyaha xisbiga mucaaradka عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه mid kale meesha waxaan ka aqoonaa siyaasaddu qabiil ma leh qolana ma leh qofka mar hadii uu siyaasad galaa walaalnimadaadina waxa waaye walaalkii way ahaan uma difaaci kartidne waxyaalo kale oo maxaa la dhahaa haybad iyo waxa ku saabsan qabiil iyo qurun qofka haduu mar siyaasad galo wuxuu u dhaxeeyaa ummadaas uu bahwadaagta leeyahay ee ah for example ummadda Soomaaliyeed hadii aan anigu u noqdo siyaasi qof kale haduu wax iga sheego waxa waaye qof ka xanaaqi karta ama wax ka dhigi karta ma jirto siyaasaddu waxa waaye falcelin way leedahay wanaag iyo xumaan wax iyo xumaanna way leedahay laakiin siyaasadda Soomaaliya waxay tahay mid sideedaba ku dhisan dana qaas ah iyo shisheeye kalkaal marka hogaamiyaha mucaaradka عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه wuxuu dalbaday taageero iyo ka dalbaday deeynada ummadda Soomaaliyeed kama uusan dalban qabiilkiisa balse maxaa asaga lagu soo dooranayaa berito 4.5 lagu soo dooranayaa maadaama xilka uu ugu fadhiyo 4.5 oo madaxweynaha markuu xil ku fadhiisto kan hadda jooga iyo kuwa ka horeeyay iyo kuwa soo socdaba uma adeegan ummadda Soomaaliyeed uma adeegan qabiiladii ayaga soo doortay waxay u adeegan dana qaas ah oo maxaa la dhahaa shisheeyaha ahaato iyo dana ayaga dhexdooda ha ahaato marka yaan ku dheeraanin aan sii gudagalno hogaamiyaha waxa uu bal ka leeyahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed dalka gurigiisa iyo dibadiisa ku sugan waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله anigo ah hogaamiyaha xisbiga wadajir murashax u tahay xilka madaxweynimada Soomaaliya inaan si toos ah taageero u weydiisano shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibadiisa intaba kaas taageero toos ah wuxuu weydiisanayaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku sugan gudaha dalka iyo dibadda marka taageero cusubnaa taageerada talo maxay tahay bal aan hore u sii wadno walaalayaal sida ogtihiin ma jiro olole doorasho oo ka marma taakulayn iyo garab istaag dadkiisa adduunka dhanna waxaa lagu dhaqmaa dadka u tartamaya xilka madaxtinimada inay taageero iyo gacan weydiistaan dadkooda wuxuu dhahay taageero oo looga maarmi karaa ma jiraan in ay weydiistaan dadkooda doorashooyinkii hore oo aad soo gali jirteen oo aad maxaa la dhahaa ummadda ku qasi jirteen taageeraha intay ka keensan jirteen lacagaha soo ma ahayn
imaaraadka iyo qatar iyo maxaa la dhahaa iyo Ethiopia iyo Kenya soo maanta inaad weydiisataan maxaa idin diiday oo dalka ma dawlad xoog badan ka dhalatay yaa bal inoo wad waxa ayaan daro ah inay caado noqotay ama la caadaystay in lagu faano taageero ajnabi iyo dhaqaale laga helo dawlado shisheeye mudane meeqa mar ayaad adigu ku faantay inaad tahay maxaa la dhahaa nin ay dawlado kala wataan taas ma jirtaa mise baaritaan inaan ku sameyna waay taasoo keentay in qof kasta oo xilka Soomaaliya ku soo baxa oo maxbuus u noqdo cidii taageertay go'aankeeda anagoo ka duulayna inaan ka xorowno taageerada ajnabiga iyo gacahoosiga shisheeyaha mudane goormeen ka xoroobeynaa maadaama gacan hoorsi iyo maxaa la dhahaa taageerada shisheeyaha goormeen ka xoroobeynaa soo marka aad wixii saxda ah aad dawladdaadana ku taageertid wixii qalad ahna aad dawladdaada kaga macaaradid maadaama anigoo shacabka Soomaaliyeed aan naga codsanayso inaan taageero ku siino lacagihii maanta anaga aan kugu deeqno birito aan kugu yabahno maxaad ku qaban doontaa ma shakhsiyaad baad u adeegsan doontaa mise waxa waaye ummadda Soomaaliyeed wax ugu qaban doontaa ilaa hadda taasna maadan cadeyn laakiin waxa laga rabaa barnaamijyada soo socda ama fiidiyoyada maalin walba fiidiyo soo dhigto inaad ku soo cadeyso insha Allah so nothing else in go'aankeena la yeesho ayaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan weydiisanaynaa inay noo deeqaan oo ayna taageeraan dhaqaalaha okay inaan ku deeqno lacag kugu deeqno oo aan ku taageerno mudane hotel Jazeera waxa ku qabsateen shirka aad ku qabsateen waxa dhahdeen beesha caalamka ha soo farageliso arimaha maanta dalka ka jira ee doorashada sidee marka aniga oo shacabka Soomaaliyeed ah iyo hadalkii warmurtiyeedkii ka soo baxay Jazeera sidee isku qabanayaan maadaama adigu dadka ugu tunka weynaa ka mid ahayd taas ma suurageli kartaa ma u maleynaa inay suurageli karto mana u maleynaa qof shacab Soomaaliyeed in uu maanta lacag ku bixiyo qof oo xaaladiisu 45% ay tahay ma sheegi karo ani ma aqaano dad oo kugu agdhow xoogaa oo xagga dhiigga laga yaabo haddii ay qaado yaa inay ku taageeraan suuragal oo xoogaa yar oo indhaqabad aad hesho laakiin waxaan hubaal ah in dawladda shisheeyana ay gadaal kaa taagan yihiin ay lacagna ay kugu farriqi doonaan taas waa hubaal intii oo la akaadaba qof walbaba karaankiisa inuu nagu taageero ayaan ka codsanaynaa si go'aanka iyo talada ay shacabka Soomaaliyeed u yeeshaan loogana xoroobo looga madax bannaanaado talinta ajnabiga iyo taakulaynta shisheeyaha intaba waxaan inkugu baaqayaa oo inka rajaynayaa oo inka codsanayaa in aad na taageertaan oo aad gacan noo fidisaan waxaan u mahad celinayaa dadka taageerayaasha u ahaa xisbiga wadajir intii uu soo jiray oo gacanta la garab istaagnaa waxaan uga mahad celinaynaa taageeradaas xoogga leh ay nala garab taagnaadeen sanadihii adkaa ee aan soo gudubnay waxaan rajaynaynaa dadkaas oo u mahad celinaynaa kuwa kalena waxaan ka rajaynaynaa inay nala garab istaagaan taageeradaas waxaan ugu baaqayaa musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada inay dadkooda taageero weydiistaan gacan wuxuu dhahay waxa aad ugu mahad celinaya dadkii intaas oo na garab taagnaa oo macnaha wadajirna kamid ahaa horta aan xisbina kama tirsani wadajir iyo kala jirna midna kama tirsani laakiin maxaa la dhahaa maadaama dadka hadda ku taageeraa badankoodii ay yihiin dad qabiil ahaan kuugu xaglinaya oo maxaa la dhahaa haddii aad rabtid inaad taageero meel walba aad ka hesho maxaa xarumo uga furan weydeen dalka meel walbo for example aniga waddankan Sweden aan joogno waxaan ka tirsanahay qolo socialka la dhaho oo macnaha sanadkiiba 250 karoon aan bixiyo $25 $26 meelahaas sanadkii la bixiyaa laakiin mar walbo shir degmada Kiruna aan joogo ka tirsanahay message oo ay soo dhaca ma aado just it laakiin adiga Muqdisho kaliya xarun ku leedahay xafiis ku leedahay meelahaas wax yar ka kala leedahay baydhabo maadan tagin afgooy maadan tagin marka maadan tagin galgaduud maadan tagin dhulkii aad ku dhalta xataa maadan tagin maxaa lahaa Puntland Garowe Jubbaland meelahaas dhanka ma aadan samaysan sidee markay isku qabanaysaa in ay taageero lagu fidiyo xisbigaagan oo joogo hal meel taas ma soconaysaa raasada shacabkooda
intii ay magan geli lahaayeen ama ay ka raasa lahaayeen ajnabiga waxaan mar kale ku celinayaa oon abiil u dirayaa oo aan codsigayga ku xoojinayaa shacabka soomaaliyeed inay taageero noo fidiyaan taageeradooda ayaana nagu filan iyo ilaahay subxaanahu watacaala oo aan tala saarano guushana waan gaari doonaa hadduu ilaah yidhaahdo dhaqankaas cusub iyo sunnadaas cusub ayaan doonaynaa shacabkeena inaan u bilowno waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudan waxaa naga guuxaysa arrintii badda arrimihii badda intay geyseen saxiixii madaxweynahaagii oo adiga kii madaxweyne ku ahaa ku dhahay aan war waxba kama ogi uu maxaa la lahaa adiguna aad saxiixday oo arrimihii maanta ay meel xasaasiya marayaan maxkamadda la geeyey marba dib loo dhigaayo ummaddii soomaaliyeedna ay kala sheeki qabto sidee maanta arrimahaas loogu gudbi karaa ma u malaynaayo in maanta ummadda soomaaliyeed ee caqliga leh inay ku taageeri doonaan adigoona caddaynin waxyaalihii aad saxiixday baddii oo weliba memorandum understand ilaa hadda aniga xataa ma fahminba waxaas yaa cabdullaahi yuusuf allah u naxariistay markii arrinta badda loo soo hadal qaaday muxuu yidhi war naga tagoo dhahay anigaaba teenaba anagaa teen u yaabana maxaa bad iyo waxaad ka hadlaysaan maxay tahay waa la iska ceeriyay kenya shariif oo carcar ahaa soo galay wuxuu dhahay alala heshiiyo soo ilmaha jiilkii wixii aniga aan dhalno wixii say dhalaan iyo wixii ay ku noolaa lahaayeen baa hadda waxaad ka iibisay kikuunyo iyo waxaan loo joogin soo marka lagama fiicno midda kale caruurta hadda koraysa waa mustaqbalka waddanka waxbarasho fiican hadday helaan waxaa waaye waddankuna waa hagaagaya mishaar fiicanna waa helaayaan laakiin haddaysan waxbarasho fiican aan la siinin waddanka hadhowna gadaal uu ka burburaya marka waa fahanteen oo maleyna barnaamijka intaas ayaan kusoo koobaya tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijka waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.